waxaa lagu qabtay magaalada London xaflad weyn oo ay soo abaabuleen ururka dhalinyarada Soomaaliyeed. xafladan oo ahayd midii ugu horeysay oo ay isku soo kaashadaan London Somali Youth Forum iyo dawladda waddanka Ingiriiska. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha kala duwan ee waddanka Ingiriiska iyo xildhibaanada waddankan iyo qaar ka mid ah mayarada kala duwan ee London sida duqa magaalada Tower Hamlet Ahmed. haddaba khudbadihii ay ka jeediyeen dhammaan ayaa ahaa kuwa wacyigelin ah iyo inay ku tilmaameen ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee London waxqabadkiisa wanaagsan oo u hayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada London. sidoo kale waxaa la guddoonsiiyay dhalinyaradii iyo hay'adaha kala duwan shahaado sharaf ama awood lagu tilmaamay waxqabadkooda wanaagsan ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. waxaana shahaadooyinkaasi dadkii ku guuleystay ka mid ahaa agaasimaha telefishinka Universal Ahmed Abubakar oo si aad u weyn loogu mahadceliyay sida uu u garab qabtay dhalinyarada Soomaaliyeed una siiyay goob ay kaga wada xaajoodaan arrimahooda. telefishinka Universal agaasimihiisa Ahmed Abubakar ayaa maaragtay waxa la guddoonsiiyay shahaado sharaf lagu guddoonsiiyay waxqabadka uu maaragtay ka geystay dhinaca dhalinyarada Soomaaliyeed oo adiga guddoonsiisay maxaad arintaas ayadana maaragtay ka horan lahayd. والله waxaan jeclaa Axmed oo ila joogay inuu iga gudoomo laakiin nasiib darrada kulay meelan kasoo ku arki doona laakiin qalbigaygu inuu isaga raacsan yahay inuu ha ogaado waa nin dhalinyaro ah waa nin business ka bilaabay waana businesskiina uu raadkeedii ku jira. Axmed waxa samaysatay waxaad samaysay oo ummadda Soomaaliyeed u samaysay inda fur Soomaalida halka ka sii wad ilaahayna maxay tahay meel wanaagsan u gaarsiiyo. sidoo kale waxa goobtaasi aanu ku wareysanay qaar ka mid ah xildhibaanada waddanka Ingiriiska iyo duqa magaalada Tower Hamlet. waraysiyadoodiina sidan ayuu dhacay. haatan waxaana la jooga Ahmed oo ah duqa magaalada Tower Hamlet ka waran xafladan sida ay u dhacday iyo maaragtay sida aad u qiirootay hadaladaadiina waxa ka mid ahaa inay Soomaalida ay ogaadaan ayna aaminaan inay waddankan uu yahay waddankooda. marka arintaas maxaad ka dheeraad adiga? horta waxaad moodaa in dhalinyaro badan maanta halkan isugu timi oo aad iyo aad inspiration u lahayd waxay keentay qiimo qaali ah oo dhalinyaradu inay ismuujiso oo ay dadka ajnabiga kala ogaadaan ayay maxay tahay ay halkan ka muujiyeen. taasna waxay ahayd fursad qaali ah oo raggii organize gareeyay xafladan ay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin sharafna ay leeyihiin. waana mid dhalinyaro badan oo dibadaha joogtaan ay ku daydaan inspiration ahaan in waxaan halkan maamulay oo dhani inay dhalinyaro Soomaaliyeed kaliya inay yihiin ha ogaadeen. I think growing up in London is difficult. It's a very busy city, it's a very big city, it's a very crowded city, and there's huge pressures. There's commercial pressures, there's peer group pressures, there's all kinds of different cultural pressures. That London is home to all of us, wherever we come from, whichever part of the world we come from. I'm really pleased to be here to support the Somali Youth Forum, but to support the Somali community. I live in and represent Finsbury Park, and I'm very proud and very honoured to do that. I see a hard-working, cohesive community making their best of their lives in London and contributing hugely to my living standards and to all our living standards. Thank you to all the Somali community. أنا رجوع عوالة أبوك عوالة سأل لسعود سبا وحاتها هاي مارت قف سهل جماعة اللي جوجيو ودن كان اللي جوجيو قاد كسوقلا عاورا سأل لسعود وحلو سي شهادة أبو المرينة لا دجالن كمارت قاتك أبيك هان فكرة ده مو ملنا سوودن كان اللي جوجين دون قاتك. waan u malaynayaa waan belief garaysanahay waan aaminsanahay haddii aanan aaminsanayn intaasoo waqti iyo time iyo dagaal ah kuma dhumiyeen. marka shahaadadan lagu siiyay oo maaragtay lagu gartay inaad maaragtay waxqabadkaagu wanaagsan yahay maxay kugu anfici doontaa isleedahay? shahaadadani waxay ii taraysaa waxay ii noqotay dhiirigelin hor leh. caawa waa ka energy badanahay ama tomorrow waagu haddii alla idmo waa ka orod badnaanaya waana ka firfircoonanaya intii aan shalay ahaa. because shahaadadan ummaddu haddii ay garato qofka la yiraahdo wal dhan waxbaad samaysay halka ka sii wad dhiirigelin bay noqonaysaa insha Allah maalinay ahaataba arintaana record gare maalinay ahaatana maalin waa ku guuleysan doonaa waana kaaga warran doonaa qaadka waddanka laga joojiyay.
الحمد لله عادة وفرحسنا وحق فرحسنا والله هي سوماليد وحي سميرها برامجي سميريان ما شاء الله أنا كسومالي أهان كمسلم أهان and it's very good very important ناس من البروجكت يال بدن إنا قريب قلنا برامجها community جا إنا different سمينه إنا good example أنا قلنا دل يرد هو ياش قف كس it's good promotion for the community. بسم الله الرحمن الرحيم وحن زكريا لهذا لندن Somali Youth Forum ما كمية هاي members كذا قارن كوميتيكا أورك الشقة وضع ما أنت هالكن وان كفر حسنا هنا سنة جوردي صوبن دقنا وحي عن هالكي سنة سوق بنيني ونديار قلونا سنة كصوص صعدة إنه دتك تصل Somali ذا وحقبت كنا أدنى فرح سنة هيدا نيرة فربنا أي عاو ككلمة UK دنمارك نوروي هولند ورنتي أدو جعلاستي تانا واحد رجينا يا دنيا Somali TV كي كتاونيسا ملول باي جوجان عدك Somaliyeed ولو بهاي هاي qof walbaana waxaan filayaa ama aan ka rajaynayaa in Soomaalidu ay lahaato cod inaga weeye mustaqbalka mar labaad Universal waa mahadnaqayaa sida ay uga soo qayb galeen barnaamijkan waana mahadsantihiin Nabil Hassan Nur Khalif telefishinka Universal caasimada wadanka Ingiriiska ee magaalada London.